السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تسود هذا halkan waa channelka Faaliyaal Dhadhaab alaabad ka heshaan warbixinada ku saabsan xerooyinka Dhadhaab soo dhawaada wararka noogu muhiimsan ee idin hayo waxa kamid ah arrimaha tirkoobka oo laga bilaabo doono xerada qaxootiga ee Dhagaxley oo shirkada shir la galay arrimaha baahanaha arrimaha guritaanka xerada Ifo2 fadlan ku soo dhawaada wararkaas oo faahfaahsan haddii aan ku bilaabo guritaanka Ifo2 dad badan ayaa la keeni doonaa waayo dad badan Ifo ayaa la siiyay manifest iyo bamba jakula dadkaasi qaarkooda taamkan waxay ka qaateen raashin xerada Ifo2 ayagoo degan xerada Ifo1 laakiin hadda waa la soo qaadayaa waxa la keenayaa xerada Ifo2 qaar baa degan qaar kalena waa laga daba keenayaa waxa la siiyay dadkaas bonooyin baa istaan bonooyin taariikh baa ku qoran ninkaas taariikhda ku qoran ayaa la rabaa inuu tago meesha sifo uu soo baxo miiska caawinta ha tago ninkii garanay waxba miiska caawinta ayaa laga caawin doonaa halkaas waxa yeelay miis caawin oo looga tirgalay raritaanka dadka waxaa jooga sargaal UNHCR u shaqeeyo oo halkaasi dadka ka soo raraya ayaa joogo halka Ifo2 waxaa jooga UNHCR ayagana ka soo dhaweynaysa meesha ka dejinayso marka arintaas sida ha loo ogaado arrimaha kale tirkoobka meeshan xerada Dhagaxley shalayta waxaa laga galay shirkaas iskugu yimaadeen UNHCR DRA iyo gudoomiyaasha lagu wacay jabanada shirkaasi waxay sheegtay hay'adda DRA in ay Dhagaxley ka bilaabi doonto tirkoob hadda waxaa la hagaajinayaa meeshii korontadii networkii wixii lagu shaqeyn lahaa asaasi ayaa la hagaajinayaa kadib waxaa la bilaabi doonaa tirkoob isniintii waxaa laga soo geli doonaa dhinacan ilinkan DRA iyo transit isku furan dhinacyada ayaa laga soo geli doonaa halkaas waxay imaan doonaan shaqaale oo DRA u shaqeyso waxaa loo shaqeyn doonaa dadka cusub oo weligood qaxooti imaanin hadda ugu horeyso ayaa ugu horeeya dadka loo shaqeyn doono dadka ugu horeeya loo shaqeyn doono waxa kamid ah dadka baahanaha cusub ah oo weligood kaar qaadanayo dadkaasi waxa la siin doonaa manifest iyo bamba jakula ayaa la siin doonaa kadib waxa la geyn doonaa xerada Ifo2 waxa kale ay sheegeen dadka kaararka uu ka xiran yahay dadka kaararka uu ka xiran yahay in badan ay su'aasha weydiiseen dawladda Kenya UNHCR way diideen dadka kaararka xiran yahay in kaarar ay u furaan DRA waxay sheegtay in markay dhamaato tirkoob kadib la marin doono imtixaan gooni ah dadkii u qalmana loo furi doono ninkii u qalmin in loo furana kaarkiisa loo furi doonin ay sheegeen dadka guuray oo kaarkooda ku guuray oo repatriation qorteedna soo laabtay ayana la wareysan doonaa dadkii u qalmo waa la siin doonaa dadkii u qalmina ma u qalmaan lama siin doono marka 6 bilood soo socota xerada Dhagaxley ay ka shaqeyn doonaan tirkoob uu ka shaqeyn doonaa halkaani ayaana laga bilaabi doonaa marka waxa ay sheegeen in ay u soo dejin doonaan section kastana loo soo dhiibi doono section leaderka iyo gudoomiyaasha loo qiimeyn doono warqadaha sifa darbiyahan lagu soo dejin doono sifa dadka ay u arkaan walina lama keenin si dadka ay u kala geli lahaayeen waa la soo wada liiska waa la keeni doonaa kadibna waxaad ka heli doontaan gudiyaasha iyo gudoomiyaasha iyo maxallahay darbiyaha ayaa lagu dejin doonaa halkan channelkan inaan ka soo yeerino ayaan isku day doonaa maalin kasta cid galayso in halkan aan ka soo yeerino oo aan soo sheegno marka arrimaha baahanaha dadka baahanaha ah oo cusub oo xerada Dhagaxley joogo ayagana waa laga hadlay waxay sheegeen dadkan oo boonooyinka haysta oo raashin ku qaato markay dhamaadaan oo tirkoobkooda la dhameeyo kadib ayaa baahana loo shaqeyn doonaa baahana laga ma tagi doono baahanaasi toos ayaa kaarkooda loo siin doonaa wax in boono la siiyo kadib badana kaarka loo bedeli doono sida hadda kuwan loo sameynaa ma jirto hor ayaa laga marinaa fara hor ayaana ka qaadanaysaa kaarkaagi laakiin ogow haddii hadda boono aad haysto aad rabtay in kaar lagu siiyo waa in systemka DRA dawladda Kenya soo marto koodii xafiiska DRA soo maraysa waxa laga soo qaaday faraha waxa loo dirayaa dawladda Kenya inaad kibaana qabtay inaad kibaana qabina ayna taas meesha ay ku jirtaa haddii kibaana aad leedahay dawladda Kenya ma ogolo in kibaana qof leh qaxooti loo diiwaan geliyo ma ogolo waa ogtiin 2019 dad badan oo dawladda Kenya ay ka bixisay faraha qaxootiga marka haddana looma ogolo in arintaasi la sameeyo marka dad kibaana aad leedahay fadlan isku gali meesha isku tagin dad badan ayaa kibaana leh oo kaarboonin qaatay waa la socdaa marka dadkaasi waxaan u baqaynaa in dawladda Kenya iyo UNHCR ba in ogoleen qof kibaana leh inuu isu diiwaan geliyo sida qaxooti amal isu diiwaan geliyo ma ogolo marka insha Allah waa arki doonaa xerada Dhagaxley in badan ayaa la sugay tirkoobkaasi ay sugeen dad badan hadda dadka way fara badan yihiin dad badan insha Allah oo hami badan leh dad badan u jooga inay qaataan manifest waayo dad badan ay buufs raba inay maraan bagoos sugay manifest kaliya sugay oo Canada group 5 Mareykanka aado oo hadda la soo wada yarteeda waxyaabahaas dhan bay dadka u kala bixi rabaan marka Soomaali mashruuc badan ay leedahay marka Ilaahay u fududeeyo dad badan insha Allah manifest sugayo manifest kana insha Allah hadda dhiman isniintii waa la bilaabi doonaa
ان شاء الله وين سلام مع اصحابته عليك عسنا ان جنالك سبسكرايب نو صارتان نو لايك جريسان نو شير جريسان وين ميم جنالك ان سبسكرايب نو صارتان نو لايك جريسان نو شير جريسان وين ميم سلام مع اصحابته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.